daawade ma ogtahay in mararka qaar ay cabsida naga hor istaagi karto inaan gaarno meel sare maanta waxaan kuu hayaa sheeko gaaban oo ku saabsan gorgor yara oo ogaaday in guusha ay ku jirto hal talaabo oo uu ka boodo cabsidiisa meel sare oo buurta dusheeda ah ayuu ku dhashay gorgorkii yaraa maalin kasta wuxuu daawan jiray hooyadii oo cirka sare ku dul sabaynaysa kalluunka ka soo qaadaysa webiyada fog kadibna ku soo laabanaysa si ay u quudiso waxa uu ku riyoon jiray goorma ayaan aniguna sidaan u duuli doonaa laakiin gorgorkii yaraa wuu baqay waxa uu ka cabsaday in uu ka dhaco buurta in baalashiisa aysan la jaan qaadi karin dabaysha hooyadiisa waxay u sheegtay gorgor haddii aad doonayso in aad taabato cirka sare waa in aad marka hore ka booddo cabsida hoose maalin maalmaha ka mid ah isagoo naftiisa la hadlaya ayuu istaagay geeska buurta dabaysha ayaa mar qura qaaday baalashiisa waxay bilaabeen in ay gariiraan kadibna wuu duulay wuxuu ahaa duulkiisii ugu horeeyay wuxuu ka booday cabsida wuxuuna noqday boqorkii cirka haddii aad jeceshahay sheekooyinkan cajiibka ah ee xayawaanka ha ilaawin inaad subscribe na soo dhahdo like-tana waa inoo dhiirgelin commentiga inoogu reeb waxa aad rabto in aan ka hadalno fiidiyoga xiga mahadsanid